dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku dhawaaqday inay dib u howlgelin doonto calansidaha Soomaaliya ee Somali Airlines isla bisha soo aadan ee September kadib in ka badan 30 sanadood oo ay hawada ka maqnayd diyuuradan oo lagu naanayso xidigta cad ama White Star taas howlaheeda caadiga ah ay hakadeen kadib qarxii dagaalkii sokeeye ee bilowday markii la riday xukuumadda militariga ahayd ee Maxamed Siyaad Barre oo ka dambeeyay dagaal sokeeye oo aan ilaa imika si rasmi ah u dhamaaneen. Ahmed Macalin Xasan oo ah agaasimaha guud ee hay'adda duulimaadka rayidka ah ee Somali Civil Aviation Authority SCAA ayaa waxa uu ku dhawaaqay in qorshaha dib loogu duulinayo Somali Airlines uu imika marayo maraaxiishii ugu dambeysay isla markaana duulimaadka koowaad uu bilaabmayo bisha September. Somali Airlines waxay ku jirtaa marxaladii ugu dambeysay ayuu yiri Xasan oo ka hadlay kulan ay lahayd dowladda federaalka Soomaaliya. Duulimaadka koowaad waxaan qabaa inuu bilaabmi doono September sanadkan haddii alla yiraahdo waanu bilaabi doonaa ayuu raaciyay. haddaba yaa Soomaaliya ka caawinaya arrintan dalalka Turkiga, Pakistan iyo Malaysia ayaa la sheegay inay yihiin jaalasha caalamiga ah ee Soomaaliya ka caawinaya inay dib u howlgeliso calansidaha qaranka Soomaaliyeed ee Somali Airlines. doorarkan waxay u kala leeyihiin sidatan. Turkiga ayaa waxaa la sheegay in uu diyaaradan ku lamaaninayo midiisa Turkish Airlines waan la sheegay in duuliyaal iyo howlwadeen diyaaradan ka shaqayn doona lagu tababari doono xarunta Turkish Airlines Flight Training Center oo ku taala magaalada Istanbul oo ah xarunta Turkish Airlines halkaas oo la sheegay in tababar degdeg ah ay ku qaadanayaan duuliyaasha Soomaaliyeed iyo shaqaalaha diyaaradan ka howlgali doona. Pakistan iyo Malaysia ayaa iyana waxaa la sheegay in wasaaradda gaadiidka iyo duulimaadka rayidka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ka caawinayaan dhinacyada farsamada, maamulka iyo sida loo maareeyo sahayda. waxaa barnaamijkan gacan ka geystay maqaayadda Mendy Palace Restaurant oo lagugu soo kordhiyey adeegyo cusub sida in lagu karinayo cuntooyinka munaasabadaha, aroosyada, ducooyinka, sanad guurada, shirarka iyo dalabaadka khaaska ah oo heer sare ah. meesha ay ku taalo shaashada ka milicso. Shirkadda reer Yurub ee Airbus ee diyaaradaha samaysa ayaa iyana la sheegay in dowladda federaalka siinayso laba diyaaradood oo ah nooca loo yaqaano Airbus A320 oo ah raxanta ugu horeysa ee lagu bilaabayo duulimaadyada sida ku cad heshiis dhacay 2025 oo sanadkii tagay. caadiyan diyaaradan Airbus A320 ayaa waxay qaadi kartaa rakaab u dhaxeeya 150 ilaa 180 balse haddii kuraasida la isku sii dhaweeyo oo si cufan la iskugu shaqlo waxa la gaarsiin karaa ilaa 194 rakaab sida ay warbixintu sheegayso. si kastaba arrintan ayaa waxa imika aad u hadal haya warbaahinta caalamka waxaana u badan tahay in markan ay xaaladdu ka duwan tahay sidoo hore oo markasta la sheegi jiray in Somali Airlines dib loo howlgelin doono balse ay baaqan jirtay. Maxamed Xaaji, Hadalsame TV. baan sugayno shaun ka dhowre Allah magane maantay rabay ahaatee baan sugayno shaun ka dhowre Allah magane maantay